السلام عليكم أصحابتي وأنا سلام بدون كذبتان وودني قرنك سومالي عبد الملك ولا سومالي قولست أنا لعبك سومالي جب الله كذب سومالي ديو سلع ما يعني له سومالي هم يدو حتى قفك النادي كنا عب سومالي دلنا الله بدأ يعني له وحنا ربعنا كهالله يعني وحقبت كدولة الصومالية لقد دوني أي حد كي دافي دولها عالمك مدحوينها مركي للدورته وحو شاقة وقضبية وحا وقبنا أيو شاقة marka waxaan rabaa inaan sheego wax qabadka dawladda Soomaaliya ee nabad iyo nolol wuxuu dhaafay xadkii wixii ay tiri waa qabanaya ayuu dhaafay saddex jibaar macnaha xataa hal jibaar ma dawladaha Afrika dhamaantood madaxweyne markii la doorto dalka dawlad u yeesho waxa dhaca musuq maasuq dhanka wasaaradaha dhanka waxbarashada dhanka maxaan ku raashay yani caafimaadka dhan kasta dalku waa ka burburaa Afrika oo dhan waa musuq maasuq madaxweynaha ummadda Soomaaliya wuxuu ku guuleystay inuu noqdo the best president in Africa qaarada Afrika iyo waliba wadamada Aasiya Hindiya arkaysan waxa way madaxweyne kasta markuu madaxweyne noqdo ama soo fiiri Hindiya madaxweynaha Hindiya ra'iisul wasaaraha Hindiya soo fiiri kan China soo fiiri maanta madaxda caalamka dunida saddexaad ee Afrika ka jirta dhamaantood guriga gataan bangiga lacag ku shubtaan dhulal bay gataan family kooda isku hareereeyaan baabuur casri ah gataan madaxweynaha ummadda Soomaaliya waa madaxweynaha kaliya ee ilaa hadda magaalada Muqdisho aan guri ku lahayn hantida Soomaaliya u nabadgeliyay wasiiradii Soomaaliya wasaarad kasta waxay qabataa wasaarad kasta maalin kasta ay shaqeysaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu qabataa wasiir shilin hal shilin oo mushaarkiisa dheer qaata ma jiro shaqaalaha u shaqeeya sidoo kale dhamaan waa la tirakoobay wasaarad kasta shaqaalaha u shaqeeya waa tirakoob baa lagu sameeyay waxaa jiray wasaarad kasta qabiil ay ahaan jirtay dawladda Xasan Sheekh nin walba wuxuu qoran jiray wasiir kasta wuxuu qoran jiray qabiilkiisa yani ayuu ka dhigan jiray maxaan ku raashay shaqaalaha wasaaraddaas ka shaqeeya ee gobolada Soomaaliya oo kala shaqeeya haday noqon wasaaradda caafimaadka qabiilka hadduu helo wasaaradda caafimaadka dawooyin bilaash heli jireen gargaar zaid ay heli jireen shaqaale heli jireen ay ka heli jireen waxaas dad waa soo dhamaaday wasaarad kasta waxaa lagu sameeyaa dabagal waxaa lagu sameeyaa isha tirakoob shaqaalaha u shaqeeya shaqaale ma jiraan shaqaale wasaaradda u shaqeeya maanta ee faalisa magacyo faalisa baa jiray ciidan faalisa baa jiray Soomaaliya oo qabiil walba uu qoran jiray intaas oo ciidan ayaa maartay macna isha kawl gasha oo maartay macna uu qoran jiray oo dhamaantood mushaar qaataa jiray waxaa jiray musuq maasuq dhinac walba ayaa jiray dawladdii Sheekh Shariif oo madaxweynaha ka ahaa ayaa waxaa xasuustaa waxaa jiray ciidamo asaga u samaystay ee asaga u qaas ayaa jiray oo asaga u leeyahay ee maafi u shaqaysaa jiray oo aan baciidan ba ahaynba ciidamadii saxdaana mushaarka ayuu u diiday oo mushaar maysan qaadan jirin ciidamadaas asaga u qaaska waxay ahaayeen asaga beeshiisay ahaayeen lafta uu ka yahay abgaal bay ahaayeen heerkaas aan musuq maasuq marin dadkii tuugada ahaa ee magaca Soomaaliya qabiilkooda uga faa'iideyn jiray jifadooda uga faa'iideyn jiray waxa ka soo aran ayagu jawaab ku shoon jiray Soomaaliduna ay ka gaajeysnaan jireen baa meesha laga saaray meesha waa laga saaray musuq maasuq qabyaalad maxaan ku raashay dib u dhac horumar ayaa loo jeestay dawladda Soomaaliya maanta orod soo arag Abiy Ahmed kii loo sacbinay ee Ethiopia dalka Ethiopia wuu burburiyay maanta Tigray way ka go'an Ethiopia Oromo dhan baa ku kacsan Oromadii madaxdii Oromada dhan buu xirxiray dhammaan qofkii Ethiopia iswaala wala dilaya madaxweynaha Soomaaliya inta soo sameeyay waa ma sameeyay wuxuu sameeyay inuu dadka Soomaaliyeed maskaxdooda dib u dhisay wuxuu sameeyay inuu maartay macna musuq maasuq la dagaalamay in dawladda Soomaaliya ay faa'iido ka helaan shacabka Soomaaliyeed in dawladda la daadajiyay oo dawladdii Muqdisho fila Soomaaliya soo dhaafi jirin ee Ugandaska lagu wardiyin jiray ay wardiyin jireen ee gabra Soomaaliya ku xukumay maanta uu daadajiyay systemkiya la daadajiyay ilaa gobolada ilaa degmooyinka loo daadajiyay maanta ciidan Soomaaliyeed baa ku arkaysaa gobolada Soomaaliya dhan iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya ka tirsan maanta waxaad arkaysaa in dawladda Soomaaliya ay maalgelisay gobol kasta oo ay malaayiin dollar ugu deeqday ilaa Berbera waxaa arkaysaa maanta
إن قبل كستمانت فائدة وكوكب دولة الصومالي أو أي شعب كصومالي كور قبته قبل الصومالي زي تون قبل كواد النور waxaad arkaysaa maanta meel kasto aad tagtid wax qabadka dawladda Soomaaliya arkaysaa dib u dhis baa arkaysaa waxa arkaysaa horumarin baa arkaysaa waxa arkaysaa in beeraleyda Soomaaliya garab la si maxaa ka ishaq laga shaqeynay sidii maartay macna ay beerahooda u falan lahayn sidii dalagooda ay meel u dhigan lahayn oo xilli abaaraadka ay ugu faa'iideysan lahayn waxaad arkaysaa in laga shaqeeyo waxbarashada waxaad arkaysaa in laga shaqeeyo caafimaadka oo maanta dawooyin bilaash ah la helaa waxaad arkaysaa iskoolaad bilaash waxbarashooyin bilaash ah la helaa waxyaalaha intay qabatay dawladda Soomaaliya dawladaha Afrika madaxda Afrika madaxweynaha ummadda Soomaaliya intuu qabtay madaxda Afrika madaxweyne qabtay waxa rabaa maanta inay isoo sheergalis oo ay tira madaxweynahaas dalka Ghana ayaa ka fiican madaxweynaha Soomaaliya taasaan rabaa ina oo waxa uu qabtay waxaas uu qabtay 3 sano gudahood dawladda Soomaaliya waxa ay ku qabatay dawlad ku qabatay ayaa rabaa maanta inay ila sheergalis horta ma ifaan horta marka wax qabadka wuxuu muhiim u yahay rabaa inaan sheego dawladdu hadii ay rabto ama madaxda marka madaxda dalka ka hadii ay rabto inay dib u soo laabato waxa la fiiriyaa maxay dalka u qabatay waxaan ku dooranaynaa madaxweynaha Soomaaliya waxbarashadu wax ka qabtay caafimaadku wax ka qabtay isha wadooyinku wax ka qabtay isha wuxuu wax ka qabtay isha dib u dhiska dalku wax ka qabtay musuqmaasuqu wax ka qabtay deynta ay Soomaaliya ka cafiyay in laga cafiyo ka shaqeeyay asagii wasaarihii hore Soomaaliya sidoo kale isha dhalinyaradii dibadda ku xirnayd ee bahdilnayd ayuu soo daayay maxaa ku isha dalka dib loogu soo celiyay shaqaale fara badan ayuu sameeyay oo wasaarad walba intaas oo kun oo dhalinyaro ka shaqeysa maanta ciidamadii ayuu diiwaan geliyay mushaarka bilaashka qaadan jiray maanta dalka Soomaaliya ciidamay leeyihiin amisom baan maanta ka maarmayna amisom ayaan maanta ka maarmay heerka aan gaarnay wallahi inaan 10 sano lagu gaaray 20 sano inaan lagu gaaray runta markaa ka hadlo 3 sano dadaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay wallahi oo billahi oo talaahay 30 sano inaan ku gaarin 30 sano ma ana gaarneen inaan wax iska weydiino horta ciidamada amisom goormay dalkeena ka baxayaan horta musuqmaasuqa goorma la dagaalamaya qabyaaladdan goormay dhamaanaysa eexdan goormay dhamaanaysa wallahi inay 40 sano dhacdeen wallahi waxa uu qabtay runta markaan ka hadlo markaan la in leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kale Soomaali kuma jiraba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kale hooyo ma dhalin dadka maanta siyaasadda ku jira qof ka wadanisan oo ka wax qabad badan oo maxaan ku ishaag ka wadanisan oo ka Soomaali jecel oo ka wanaagsan wallahi inuu Soomaali ka dhalan wallahi kuma jira maanta xilliga aan ku noolnahay tuug ayaa jira tuug siyaas waxa jira dad siyaasadda ka macaasha dad dhiiga shacabka Soomaaliyeed ku macaash ku raadiya dad guriga ka gata qof kasta oo dawladda u shaqeeya ama maamul goboleed u shaqeeya dhamaantood gawaari bay gataan walal bay gataan lacagta shacabka loogu dhibay wada musuqmaasuqan soo eeg wasiirada Soomaaliland soo eeg kuwa Puntland soo eeg wasaaradaha ishaag maxaa ku ishaag koonfur galbeed hirshabeelle wasaarad kasta wasiirka ka shaqeeya wasaarad kasta waxay qabatay bal ishaag hal wasaarad oo Puntland ka jirta oo shacabka reer Puntland wax u qabatay miyaa jirta wasaarad kasta waxa ka shaqeeya dadka ka shaqeeyana waa dad ehelkiisa wasiirka meesha jooga wasiir kastana baabuur gatay lacag guriyo wuxuu ka gatay dibadda ishaag hantidii loogu talagalay inuu gobolada iyo degmooyinka Soomaaliya wax uga qabto asaga cunay asaga isku qawajiye war wax qabad aad ku faari kartid oo shacab oo madaxda Puntland ay ku qabatay ishaag ayo wax qabad aad ku qabo 21 sano jirtay cashuur baa laga qaataa ilaa handika ma tiid Soomaaliland sidoo kale galmudug sidoo kale maxay ku qabteen waxaan rabaa inaan ku sheego baarlamaanka Soomaaliland waa wada tuugo kuwa Puntland waa tuugo wasiiradooda waa tuugo madaxdooda waa tuugo haddayse tuugo ayna wax qabtaan maxaad wasiir u tiri maxaa wasiir uga dhigtay muxuu ku yahay wasiirka maaliyadda hadduu waxba ku qabanay muxuu ku yahay wasiirka waxbarashada wasiirka ishaag qorsheynta waxaas wasaarada maxaa u haystaa haddayse waxba ku qabanay ma inay ku dhacaan oo ku boobaan oo hantidaada qaataan baad madax uga dhigtay madaxweynuhu muxuu ku qabtaa maalin walba diyaarad sii raac soo raac waxaa laga joojiyay maanta oo shacabka reer Puntland ay guul u tahay maalin walba lacagtii safarada uu ku aadi jiray Cabdulle Gaas iyo Farola ay ku aadi jireen Ethiopia ayaa u baaqatay maanta Muqdisho Baydhabo ay Muqdisho Soomaaliya Baydhabo Kismaayo u meereystaan adduunka dhan baa laga soo xiray waxaad faa'iido maanta ku qabtaa oo maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu faa'iido ku keenay ay tahay baddaadii dhulkaagii la iibsanayay ayaa maanta ku baaqatay kalluunkaagii la daldalanayay gobolka bari laga daldalanayay ayaa ku baaqday
waxaa ku baaqatay oo reer Soomaaliland oo aad faa'iido ku qabtaan dakadiini iyo saldhigyada la siinay cadawga Soomaaliya iyo dhulkiina lala wareegay macdintiina Shiinayska daldalanay ayaa inay baaqatay heshiisyadii ay gali jireen Muuse Shaani ayaa meesha ka baxay iyo maartay macnaa isha xisbiga kulmiye kuwa aaran jamba meesha ka baxay waa ina taa faantawa dakada Baraawe ayaa iib u ahayd Shariif Sakiin oo uu rabay inuu iibiyo maalintii maxaa Cabdullaahi Farmaajo la doortay Sheekh Shariifna meesha uu ka baxay waxaan ku Shariif Sakiin uu meesha ka baxay ayaa dakadaasi badbaaday waa ina faantaan qaadkii maalin walba ummadda Soomaaliya lagu daldali jiray ayaa la joojiyay siisaba heshiisyo waxa lagu xiray oo Kenya inay badda Soomaaliya ay ku haysato ay ka tanaasulsho ay ka mid tahay waxa lagu xiray in maarta hawada Soomaaliya ay ku xadgudubto dhowr mar inay maarta macna ay ka bixiso ay ka soo jawaabto waxa lagu xiray inay gobolka Gada ay isaga baxdo waxa lagu xiray waxyaabo aysan Kenya ay maarta macna aysan ogolaan ayaa lagu xiray saas ku joogsay dadku ina faantaan maxkamadda Soomaaliya maxkamadda isha cadaaladda ee ICJ maxkamadda adduunka maxaan ku raashay waxa loo balansan yahay 2021 Maars ayaa loo balansan yahay waa ina taa faantaan waxay maxkamadda adduunku qortay in Kenya dalabkii Kenya ay ahaa in abukaatiyaasheedu aysan diyaar ahayn oo coronavirus uu dhacay meeshay ku qoranta waxaan rabaa inaad Google garaysid aad tiraahid aad ku qortid ICJ Soomaaliya aan Kenya inaad ku qortid Google-ka sababta ay ICJ u baajisay waxa weeye Kenya dalab uga yimid oo coronavirus ay ku marmarsiyotay coronavirus oo cudur caalamka dhan dhibaato ku ah oo isku socodkii iyo maarta macnaa isha xayiray taas ay ku faa'iidamaan dawladda Soomaaliya waxay rabtaa in maxkamadda lagu kala baxo waa ina taa faantaan waxaan rabaa inaan mar labaad aan ku soo celiyo halkaas aan uga baxo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qabtay caalamka madaxweyne qabtay ma jiro muddo 3 sano gudahood madaxweyne caalamka qabtay ama Afrika qabtay ma jiro حتى دونالد ترامب يا أملاي إنه أسوي كوح قبض بديه هذا رنت مكان كاظم هدي أي تران قف كم مدح كوح قبض بدن وحيالا وجوش لك جاري من الحوار أمد الصومال هدي أوجره عضيمها إلى السو ذاك هوس يقصوق هوس يقصودر وحتى هذا من الحوار غانا أما موسمبيق أما إيش محمد ساوث أفريقيا أي 3 سنة وحقوق قبته وحاس نقالوا وحقوق قبته وحاس وحبرشاد وقبته إيش إلى السو ذاك lacagtii imaaraadka laga qaban jiray ayaa ilaa hadda bangiga ku jirta ee 10 ahayd 10 milyan ahayd ilaa hadda bangiga Soomaaliya ku jirta cid saa u taaban karta ma jirto waayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tuug ma aan waa ina taa faantaan annaga waxaan nala haray waa tuugo aan qabiil ku taageerno waa tuugo aan qabyaalad ku taageerin waxaan nahay dad Soomaaliyeed waxaan nahay dad la adoonsanaana slave macnaheedu taqaan سياسيين تأيان إسلاف الله أدون قفكنا هذه أدون إسكدي أدوميه أو أدون إنه جاي إسكو قاطع إسكد عدعيه وحاجة إنه دين الإسلام وكبحي ورت ما يفهم ورت حكالو قبيلسته أما ضدك قبيلك وحكو تاجر وأدون جاي أدون إن أيجا عشور كقاضية أو أيجا دعية أيو قبيلك تاجرية وأنا تفهم توا وحنوسين وحاركيسا دني بوحكي شيء كوا أن مجال السد جناي أي واحد جاري عن هير حتى أنا إدلان أجدك يستعجل أي كسر لوده هير ناقول مركي أي أسكور المانو أي محاكرة أي أقول لك هلا يا عايا هير كاس أي قبيل كنا مرسين هير كاس بان قبيلكم مري كوا قل مدو كسر جد حاف مركي وحكي شيء لما أنتوا أنا أي مارت حرير كي وده جوين ومال والبيع عاية قبيلة دتك waxaan soo ogaaday inta aniga social media ku soo jiray dadka xaaf ku abtirsada aniga abtiyaasha iyo kuwa dali ku abtirsada inay kuwa ugu qabiilistan wallahi ana been shay wallahi abdul gaas maal wax ka sheegi jiray wallahi oo billahi tallahi habar ay xaganaysa iyo dad aniga aan fahminaay oo ama aan darisnaay oo ii caroonay wallahi sijir wallahi inay sijireen wallahi laakiin waxa ogaaday dadkan dani uu ka soo jeedo inay yihiin dadka ugu dulisan Soomaaliya iyo kuwa xaaf uu ka soo jeeday iyo kuwa dani hadda uu ka soo jeedo inay yihiin kuwa ugu gunsan uguna jaahilsan ayaa ogaaday kuwa ugu jaahilsan waa u jeedaa danina waa u jeedaa dadka uu dani ka soo jeedo waa kuwii dekada suqadra
yeman siiye waay ee naagta ku bedeshay waay waa kuwii sayid maxamed cabdilla xasan jabiyey waay waa dad runtaan rabaa inaan ii sheego dad baa dadkaas waxay ka dhigaan dad karaamaysan oo waxay dhahaan boqoradii daarood wax boqor daarood la yaama jiraan waa dadka ugu goynsan Soomaaliya waa kuwa maanta intay baxeen magaalada Muqdisho tageen ayagoo madaxweynahooda la kulmi kara safiir xun oo hoos fariistay waa waxaan rabaa inaan ii sheego waxaa jira jifooyin sumaysan baa jira jifooyin sumaysan ayaa jira meel walba adduunka joogtaan si share gareey